بسم الله الرحمن الرحيم waxaan caawalan ku qabanayaa maansa gaaban oo aan ugu magac daray xumaale waa maansa gaaban oo aan ka tiriyo xaaladaha kala duwan ee haatan wadanka ka jira gaar ahaan maamul goboleedyada oo aan u arko inuu yahay xafiltanadii qabiiliga ahaa oo u xoobsiibtay nooc ka duwan noocyadii qabiilkii caddaa xidhayna shaar la yiraahdo maamul goboleed waana hanaan aan u arko in uu xidhan yahay zuud qabiil oo la loolamaya dawladii wadanka khiyalka maansadana waa hab aan ugu tala galay يعني بالويل ير أو عاود الشيء أيان أمك عبحنايا ونوانقلايا إسلام مركز نوجدوا أي تهاي وحناك يا ويل كاسير أو مركو ربو بدلان أما أو ربو لو سمرهب أما أو بيدبر ربو إنه آدو أباهم فيزو أي موقتها عندها صوص صعدة مركب بالويل كيفان ليه هاي وحمله دقه waxaan بالله بيا xalay goordam beetay xidigu saraateen kay hooyo xeel dheer xaamilo ku dihateen xudintiisii oo qoyan in xumaale lagu waco xaasho ugu wanqalayo waa xaalad duuniyo xilliga ku badayo xushmo ku horeysaan xira kuugu sii jirin waayo cid walba si qabiila ayay wax u xirxidhatay wiilkiina waa wiil Soomaaliyeed oo haniya mustaqbal ka dhaxraba wadankii maxaa tala hadaba waxa laga yaabaa inuu su'aaliga weydiiyo raado maxad xumaale igu bixisay balan ka qanciyo aadna xujala aatida dalku 10 xuduudood uu xaasha dhaafo xiqdigii qabiilka degmo u wada xiray xagga iyo waqooyigu waan xoroobay buu yiri xagga sokana khaatumo budlaan baa xuduuda leh kaliya mudugis xoogsaday hiraana xeegada waxay xeel sugaysaa xaq shabeellada dhexe waayo gobolka hadda aan ku tirino oo u haray ma jiro xaq kastana jubada iyo xudur way murmaayaan xaruntii dhulkeenee dalka laga xukumi lahaa waa muqdisho iyadaaba kala xidhan xadxad oo dhan baa jira oo xilliya qaarkood qof dhar dawladeed xidhan dhacay ka oran karin maya dhankaas iyo ma aadi karo hurwaabu ku leeyahay isxilqaanku waa been yani qof walba wuxuu ku leeyahay waxbaan qabanayaa oo NGO baan sameeynayaa oo maamulkii oo qabiilkaygan u galayaa waa been waxa soo dhan qof kasta isxilqaan buu wadaa isxilqaanku waa been xukun roorsi weeyaan iyo xeel qabyaaladii xaabaysanayso dawladii xasilin layd uu dagay xiskeedii eray xaan cunaayo xaraaradu u tahay hiil qorshaheedu yahay xasad xigmadeedu been tahay xaakimkeedu tuug yahay xildhibaanadeeduna xildhibaano wada yihiin abwaankeedu xoor yahay waa kii waalin lahay abwaanku waxa abwaankeedu xoor yahay ku ka sii xanaaq badan shacabkeedu xaad yahay hadii la iska xiiriyo hadii kala baxaajiyo loo lahaan xanaanoon xuquuqdooda kii siday xag la gooyahoodii u yaqaan xusuba jare xaajiyo wanaageed jeer loogu xilan karin xeer beegtideeduna xaaba horiya mooye sama iyo xiriirkii ku xasaasiyoodaan oo sheekh xatrayn jiray lagu nacay xalaashii looga xiisay kii yiri xaaraan way bannaan tahay oon xaawalaydii iyagoo la meher xaday ama aanan lagu xidhin xayin ciyaala laga dhalo xijaabkoodu been yahay xantu ay mubaax tahay xatooyadu ku faan tahay wuxuu ku leeyahay hay'ad meesha lagu shaqeynayo wuxuu baan ka dhufsaday yani wuxuu ku faanayaa wuxuu isku haystaayo laba guri baan ka dhistay waa tuuganimadii baa maanta maraysaba in lagu faano xantina waa mubaax xatooyadu ku faan tahay xumba tahay aqoontii jeer sii xudumin layd xulashada gadaaleed da'yar loogu xilan lahaa xitaa ciyaalka maanta koraya iskuulaadka ay dhiganayaan iyo waxyaabaha ay ka baranayaan waa xumbo aan waxba loogu xilan karin yani qof kasto xaqiiqo doonana bal daraasadan sameeyay yuunan kaliya yaqbalina ha baaro oo indhihiisa wax ku soo arko cibaadadu xawiilan tahay oo xaasas lacag helay ragii qaar xukumayaan waxyaabaha la inoo sheegay waxa kamid ahayd xilliga ay hoggaanka haweenku qabtaan waa baaba inaan ku xaragooniyo ku xoolaysan mooyee muslimnimo xaggeedana kaad ugu xidhnaan layd xanjo kaaga goyn karin nin walba gadheer buu la baxay sulwaalku uu gaabsaday yani waxay tahay in uu jeebka waxay galaan maahe iscaawimaadii xitaa way go'day kaad ugu xidhnaan layd xanjo kaaga goyn karin xaanshi yahay kitaabkii iyo lagu muxoomaan bal allaan idinku dhaariyee goorma idinkugu dambaysay wadaad meel kitaab la fadhiyo oo akhrinaya oo loo fadhiyo loo tuban yahay goorma idinkugu dambaysay bal baarabal dib bal horta taariikhda ugu laabta maanta xaqiiqada hubiya xaanshi yahay kitaabkii iyo lagu muxoomaan kaftankiina xaa tahay ku xisaabtankeed yahay halkaad xoqan lahaydiba xanaf badida awgeed xujo miiran leedahay xawaaruhu degani yahay xasilkuna daldalan yahay xishood meel la'aan yahay dadku kala xaniban yahay lala xaydan yahay qori xabad ay u tahay ubad adna aad xoog yaraanta waa wiilkii ay xumaan la hadlayay leeno u soo tirinay waxa soo dhanay adna aad xoog yaraanta dhalaal aad u tahay xayd ayaan weerba xeel leh kugu iri xawaariyo xusul duubidii dami hana xulan xariir dumar xubnahaaga mooye qof xanaanaha u duman xayiraad wanaagsan xayiraad wanaagsan una gara xumaalow xafidaadda taadiya saban xumaadka lagu jiro yani uun wanaagii iska xoor kuma oran bilaashe waqtigaa ku yiri xadidaya ujeedadu waa xaabaha u noqon xashiishkeeda hoos yaal hana noqon xigaal diid kaanu xarun lahaan jirin oo qofka xigaal